safiirkii Soomaaliya u fadhiyay dalkani Djibouti Maxamed Cali Nuur iyo wafdi uu hogaaminayay oo ka tirsan safaaradda Soomaaliya ee dalkani Djibouti ayaa waxa ay maanta kulan la qaateen gudoomiyaha baarlamaanka dalkani Djibouti Maxamed Cali Xumed. kulankan ayaa waxa lagaga hadlay xiriirka iskaashiga cilaaqaadka walaalnimo ee ka dhaxeeya labada dawladood, waxaana ujeedada kulankan ay ahayd sagootin loo sameeyo safiirkii hore u fadhiyay Soomaaliya dalkani Djibouti Maxamed Cali Nuur. gudoomiyaha baarlamaanka ayaa safiirku waxa uu ku hambalyeeyay hawshii ballaarneyd ee muddadii uu joogay uu ka soo qabtay xiriirka labada dal iyo waliba iskaashiga cilaaqaadka walaalnimo ee ka dhaxeeya dawladaha Soomaaliya iyo Djibouti. waxaana safiirka Soomaaliya ee dalkani Djibouti Maxamed Cali Nuur uga mahadceliyay mas'uuliyiinta kala duwan ee dawladda Djibouti sida ay had iyo jeer isku garab taageen Soomaalida marka loo eego nabad ku soo celinta iyo in Soomaaliya ay markale cageheeda isku taagto. dhinaca kale safiirka Soomaaliya ee dalkani Jamhuuriyadda Djibouti ayaa xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkani Djibouti waxa uu kulan sagootina ugu tagay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkani Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf. kulankan ayaa waxaa sidoo kale safiirka ku wehlinayay qunsulka safaaradda Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Hiraabe iyo xoghaynta koowaad ee safaaradda Mursal Cabdulle. waxaana kulankani wasiirka arrimaha dibadda ee dalkani Djibouti ay la qaateen ujeedadiisu ay ahayd sagootin safiirka Soomaaliya ee dalkani Djibouti oo isagu hawshii ay ka idlaatay. waxaana wasiirka arrimaha dibadda ee dalka uu sidoo kale isagu lafahantiisu ku amaanay dadaalada badan ee safiirku waday muddadii halkan uu ku sugnaa iyo waliba doorka horumarineed uu ka gaaray dhinaca diblomaasiyadda marka loo eego xilka cusub ee safiirka loo magacaabay oo ah xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. wasiir Maxamed Cali Yuusuf ayaa mas'uuliyiinta kula dardaarmay si adkeynta xiriirkii iskaashiga cilaaqaadka walaalnimo ee ka dhaxeeya dawladaha Djibouti iyo Soomaaliya. safiir Maxamed Cali Nuur oo muddo gaaban ka shaqeynaya dalkani Djibouti ayaa waxa uu wax weyn ka qabtay dib u habeynta iyo dhismaha safaaradda Soomaaliya. Mikael Cabdirashiid Bare, Radio Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Djibouti.